بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو نبضون عبد القادر أحمد إبراهيم قدوميها نبضون قبل كبري waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan halkaan ka salaamo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan rabaa halkaan inaan ummadda muslimiinta ah ee Soomaalida ah uga baryo in Alle abaaraha ka saaro, in Alle ka saaro colaadaha, in Alle ka saaro wax kasta oo dhib ku ah. waxaan ummadda ugu ducaynayaa in Ilaahay maslaxadooda khayr, dawladnimadooda wanaagooda iyo ifafaalaha oo ayaamakan lagu dooran doono ee madaxweynaha dawladda Soomaaliya in Alle madaxweyne u dooro wanaagsan oo maslaxadooda guud iyo mid gaaraba ka shaqeeya. intaa kadib mawduucaygu dhabtaahi wuxuu ku saabsan yahay maadaama aan odayaasha dhaqanka ee gobolka Bari iyo guud ahaan Puntlandba arrimaha amni darro ee ka soo cusboonaaday gobolka Bari waxaan halkaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatooyinkii ama shaqaaqooyinkii ka dhacay gobolka oo ay ku dhinteen waxgarad, oo ay ku dhinteen saraakiil, oo ay ku dhinteen dhibaato ka soo gaadhay iyo dhaawacyo ganacsato. waxaan rabaa inaan halkan si dhaba uga tacsiyeeyo nabadoon Muuse Xaaji Faarax oo runtii ahaa lafdhabar nabadda iyo xasiloonida beeraha lafdhabar u ah. waxaan rabaa inaan halkaa ka tacsiyeeyo taliyayaashii iyo agaasimayaashii madaxtooyada weliba iyo ciidamada kulli intii ku dhintay waan ka tacsiyeynaya. waxaan rabaa halkaan inaan ka sheego oo aan ummadda ugu baaqaya amniga iyo istiqraarku wuxuu ku xiran yahay shacabka iyo dawladda oo qorshe cad oo ay amniga ku sugayso keenta. waxaan ugu baaqayaa dhammaan in la wada shaqeeyo. waxa cajiibka iyo halkaan inaan hadal ka soo jeedo keentay maamulka gobolka Bari iyo qaybaha amniga dadkii ugu sarreeyay maanta inay keenaan dhibaatooyinkii ka dhacay inay maanta natiijadii ka dhigaan in dhalooyin iyo kabo la soo saaro shir jaraa'id loo qabto. arrimahaasu arrimo isguda maaha. dad baa dadkaan laayay, dad baa ammaan darrada samaynaya, dad baa dadka barakicinaya, dad baa dadka ku xadgudbaya, dad baa dadkaan xalaalaystay dhiiggoodii iyo hantidoodii iyo waxay lahaayeen raba inay xalaalaystaan. waxaan rabaa marka qaybaha maamulka iyo qaybaha amniga in arrimaha hadda ay sameeyeen aysan ahayn wax u qalma ummadda, kuma qanci karaan. anigoo ku hadlaya odayaasha dhaqanka ee gobolka iyo guud ahaan Puntland uma qalanto in arrimahaas oo kale ummadda loo soo bandhigo. waxaa la doonayaa dembiilayaal, waxaa la doonayaa dadkii dadkaas dhibaatada u geystay in maxkamad cadaaliya la soo saaro, in maalinuun dembiga ay leeyihiin lagu qaado. waxa aan halkan rabaa inaan uga diro madaxweynaha dawladda Puntland. waxaan ahaa runtii dadkii aadka u doortay, dadkii siboodka siiyey, dadkii taageeray ee ku soo dhoweeyey gobolka Bari, dadkii hanaanka dawladnimo doonayay iyo isbeddelka ayaana dadkii u saciyey inaan garab istaaggiisa inuu madaxweyne ee dadku ay taageeraan oo uu noqdo dadkii taageeray baan ka mid ahaa. waxaan u taageerayna ma ahayn inaan
يعني هانتي أما وح كجدوني أما سمعتك لكن وحي أهيد تلودات iyo dawladnimo iyo ummadda inuu ku hago waxa wanaagsan inuu ku hago taasoo aan doonayo inuu mas'uuliyadda dalka ka saaran ay koow ka tahay inuu u xulo ama u raadiyo dadkii sabata bixin lahaa ammaanka iyo maamulka ama gobol ha ahaado ama degmooyin ha ahaado waxa la doonayaa dad istaahila oo doona oo mas'uuliyadda garanaya oo dadka ka xishoonaya oo waxa ay qabanayaan garanaya oo waxa ku soo yani dadka ay ka mudan yihiin garanaya dadka noocaasa inuu yani u magacaabo oo ku ilaaliyo oo ku shaqeeyo taasa laga doonaya waxaan ugu baaqayaa anigu waxaan ugu baaqayaa dawladnimada u baahannahay aamineen dadku inay is-aaminaan baa loo baahan yahay in la wada shaqeeyaa loo baahan yahay shacabka si gaara waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan Soomaali ammaankooda iyaga mas'uulka ah meel kastoo ay joogaanna midnimaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaanna madax bannaani baan maanta ku baaqayaa waad la socotaan in gumaysi dalkeena soo galay gumaysi xun oo dawladaha deriskeena ah oo Itoobiya ugu horeyso inay gumaysi wado gumaysigaasuna waa mid yani caruurteena iyo mustaqbalkeena iyo jiritaankeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna khatar ku ah saa darteed marka waxaan soo jeedinayaa meel kastoo ay Soomaaliya dal iyo dibadba ay joogto in arrimahaas oo kale aan ka hor nimaadno gobollada laga soo baxo degmooyinka laga soo baxo baadiyaha lagu baaqo inaynaan gumaysi geli karin Soomaaliya way isku filan tahay hantidooda ku filan dadnimadooda ku filan cilmigooda ku filan aqligooda ku filan dal iyo dadba way isku filannahay waxaan rabaa midnimo inaan ugu baaqo waxaan doonaynaa in dadka iyo dalka iyo loo duceeyo oo aan isu duceyno oo madaxdeena u duceyno oo dadka inaga xanuunsan u duceyno oo inta caafimaad qabta Ilaahay u siyaadiyo u duceyno oo dhammaanteen aan noqono dad isku xiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh